golaha aqalka sare ee Soomaaliya ayaa galabta ansixiyay hindisa sharciyeedka batroolka kadib markii uu sharcigani horay u meelmariyay golaha shacabka kulanka maanta uu shir gudoominayay gudoomiyaha aqalka sare Cabdi Xaashi Cabdullaahi ayaa ugu horeey waxa golaha ka hor hadlay senator Ilyas Cali Xasan oo ah gudoomiyaha guddiga kheyraadka kaabayaasha dhaqaalaha iyo gaadiidka ee golaha aqalka sare waxaana ugu horeyn ka warbixiyay maraaxiladii uu soo maray sharcigan hindisa sharciyeedka batroolka wuxuu soo gaaray aqalka sare 16 July 2019 iyada oo la marsiiyay akhrintii koowaad 28 October 2019 si waafaqsan qodobka 44 faqradiisa labaad ee heeroosaadka aqalka sare gudoomiyaha golaha aqalka sare ayaa 28 October si rasmi ah ugu gudbiyay ama noogu soo gudbiyay hindisa sharciyeedkan guddigaynay kheyraadka kaabayaasha dhaqaalaha iyo gaadiidka golaha aqalka sare baarlamaanka federaalka Soomaaliya si waafaqsan qodobka 45aad faqradiisa koowaad ee heeroosaadka aqalka sare isaga oo ina faray in aan uga howlgalno hindisa sharciyeedkan si waafaqsan heeroosaadka golaha aqalka sare senator Ilyas ayaa sidoo kale ka warbixiyay qodobada sharcigan ee wax ka bedelka ku sameeyeen yaalihii wax laga bedelay qodobada soo socda ay ku xusan yihiin qodobka koowaad waxaa lagu kordhiyay qodobka 17aad kaas oo xarafkiisa ba oo kaas oo ka hadlayay maxaa la yiraahdaa habka sharciyada maaragtay uu ka hadlayay golaha aqalka sare iyo doorkooda maaragtay qodobka 3aad qeexida ereyga baarlamaan ayaa iyadana waxaan ku kordhinay oo ama lagu daray baarlamaan wax loola jeedo qodobka 9aad waxaa lagu kordhiyay farqad afraad oo u qoran sidan dhammaan heshiisyada la xiriira batroolka ee ay gashay dawladda federaalka kadib 2012 waa in la waafajiyaa nidaamka wax soo saar wadaaga intaas kadib senatarada aqalka sare ayaa dood kulul ka yeeshay sharcigan iyo muhiimadda uu leeyahay waxaana ugu dambeyntii la go'aamiyay in sharciga cod loo qaado waxaana ogolaaday 24 senatar halka 4 kalena ay diideen mana jirto cid ka aamustay sida uu ku dhawaaqayo gudoomiyaha aqalka sare Cabdi Xaashi Cabdullaahi hadda waa 24 ogolaatay iyo 4 diiday cid ka aamustayna ma jirto sharciga batroolku sidaas ansax ku yahay ugu dambeyntii wasiirka batroolka Cabdirashiid Maxamed Axmed ayaa ka mahad celiyay ansixinta sharciga batroolka runtii waxay ahayd maalin aad u dheer oo shaqo culus la soo qabtay oo la sugayay waan sugaynay in outcome-ka uu maanta saan noqdo alxamdulillah ilaahay waa noo fududeeyay waxaan aad iyo aad kaga mahad celinayaa juhdiga aad samayseen dadaalka aad ka qabateen fikirkii lagu raacay aqalka golaha shacabka inuu ku raaco golaha aqalka sare inuu ansixiyo sharcigan batroolka wuxuu maanta asaas u yahay safar dheer oo ay Soomaaliya insha Allah gali doonto oo ay u gali doonto inay ka faa'iideysato kheyraadka dabiiciga Ilaahay ku manaysay subhanahu wa ta'ala waxaan ka ballan qaadayaa dhammaan waxaan heshiiskaas ku qoran in sidii uu yahay u ful hadii Ilaahay inta aniga aan joogo sharcigan ayaa lagu wadaa inuu dhaqan galo kadib markii uu dhawaan saxiixo madaxweynaha Soomaaliya Xasan Kaafi Qoyste VOA Muqdisho